digtoonow inaad ilmahaaga ku samaysid 4 qodob mid ka mid ah. cuqdada ha ku abuurin ilmahaaga, maskaxdiisana ilaali intuu yar yahay. ha aayin ilmahaaga markuu qalad sameeyo. ha u bixin ilmahaaga magacyo aan banaanaysyo fool xun oo ha ugu yeedhin. ha ku dhex maagin markuu ku dhex jiro dad kale amba caruurta khayrkiisa ah. weligaa ilmahaaga ha ku dhex canaananin dadka hortooda. ka taxadir inaad ku dhex maagtid. waxaan maanta kuu sheegi doonaa 4 qodob oo haddii ilmahaaga aad ku samaysid maskaxda ka dili kartaa amba ka dhaawici kartaa. wuxuu noqon doonaa ilmahaasi mid bilaa kalsooniya oo qof kasta ka cabsada. soo dhowo mar kale daawade, magacaygu waa Nadira Siciid. ugu horeyn like saar fiidiyogan, anigana waxay ii noqonaysaa dhiirigelin maadaama uu waqti badan iga qaatay samaynta muuqaalkan. waqti badan ayaa iga soo galay si aan xogtan idinla wadaago, adiguna igu dhiirigeli inaad like saarto. Number 1, ha aayin ilmahaaga markuu qalad sameeyo. haddii kale wuxuu noqon doonaa mid caban oo bahdi laga saaray. dadka dhexdooda wuxuu ula muuqan doonaa mid bahdilan markasta oon isku kalsoonayn. caydaasi waxay saameyn ku yeelanaysaa maskaxdiisa. sidoo kale beri ka maalin dadkii aad ku hor caayaysay ayaa iyaguna waxay u adeegsan doonaan kelmadihii aad shalay ku lahayd. ilmahaaguna wuxuu noqon doonaa mid maskaxiyan aan caafimaad qabin. Number 2, ka digtoonow oo ha u bixin ilmahaaga magacyo aan banaanaysyo fool xun. hana ugu yeedhin magac aanu raali ka ahayn. haddii kale waxay dhaawici kartaa maskaxdiisa oo waxayna ku sababi kartaa xanuuno badan. maskaxdiisuna ma noqon doonto mid caafimaad qabta. markuu weynaado ilmahaasi wuxuu nici doonaa dhammaan dadkii ugu yeedhi jiray magacaas, isagoo ka fogaan doona dadkaas faamiligiisa ah. cuqdada xun ayaa geli karta ilmahaas aanu weligii ilaawin. Number 3, ilmahaaga ha ku dhex eedaynin dadka dhexdooda oo ha ku dhex maagin caruurta walaaladiiya amba kuwa ay iskuulka isla dhigtaan. waayo ilmahaaga waxay u arki doonaan dadkaasi mid daciif ah amba saaqidoon waxba qabsan karaynin. caruurtuna way caayi doonaan ilmahaaga iyagoo ku qusquslaya kana maadaysanaya. ugu dambeynna ilmahaaga yari wuxuu noqon doonaa mid bilaa mooraala oo niyad jabsan markasta. wuxuuna ka cabsan doonaa dadka oo dhan isagoo isleh bilay ku caayaan. marnaba ha ku samaynin ilmahaaga ficiladan xunxun, waxayna saamayn karaan mustaqbalkiisa iyo caafimaadkiisaba. Number 4, ka ilaali ilmahaaga ereyada niyad jabka ku sababi kara. ha ku odhanin waxba ma qaban kartid, waxba ma samayn kartid, waayo hebel ayaa tahay. marnaba ha ku odhanin ilmahaaga ereyada ku abuuri kara inuu noqdo midaan awood lahayn oo welibana caajisa. ereyadani waxay ku abuuri karaan mooraal xumo, maskaxdiisana waxaa ka dhaadhici kartaa inuu yahay midaan waxba qabsan karaynin. cuqdada ha ku abuurin oo welibana ha ku odhanin ereyo maskaxdiisa dhaawici kara. intuu yar yahay ku ababi hadal wanaagsan, dareensii kalsooni iyo inuu yahay fariid wax walba qabsan kara. ka ilaali ilmahaaga niyad jabka, haddii kale waxay saamayn doontaa mustaqbalka noloshiisa. daawade, haddii aan su-aal ku weydiiyo, ma kula tahay Soomaalidu inay yihiin dadka ugu badan oo ubadkooda u bixiya magacyo xunxun, sidoo kalena caaya iyagoo ugu yeedhaya magacyo aanu jeclayn ilmuhu? maxaa sababi kara ayay kula tahay dhaqankaas ay Soomaalidu leeyihiin? fikirkaaga nagula wadaag dhanka commentiga, sababta ay Soomaalidu caruurtooda sidaa ugula dhaqmaan. maxaad u malaynaysaa amba ku sababi kara inay u bixiyaan magacyo xunxun? nala wadaag fikirkaaga oo ka dhiibo dhanka commentiga. muuqaalkan u sheergaree faamiligaaga, asxaabtaada iyo qof kastood isleedahay amba la jeclaysan lahayd xogtan muhiimka ah inuu ka faa'iidaysto. 300,000 oo followers ah waxay nooga dhiman wax yar. nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta halkan aanu ku midownay. waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. waa anigoo ah Nadira Siciid. waa inooyo mar kale iyo fiidiyowga kan xiga.